xasan sheekh maxamuud culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya ayaa maanta si degdeg ah u joojiyay xaflad la filayay inay ka dhacdo xarunta xisbigiisii lagu kala tagay ee JSB ee Muqdisho. xafladan waxaa hogaamin lahaa xogayaha guud ee xisbigaas Xuseen Sheekh Maxamuud, sidoo kale waxaa ka qayb galaya dhowr xubnood oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga. waxaa la geeyay halkaas ka hor xafladda boor uu ku sawiran yahay sawirka Liibaan Axmed Xasan oo loo yaqaan Liibaan Shuluq. ninkan ayaa sheegtay inuu yahay musharaxa xisbiga JSB ee dowlad goboleedka Galmudug. wuxuu sheegay in laga reebay Mahad Maxamed Salaad oo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ah oo waxun dhaqaale ah oo uu ogolaaday. waxa sidoo kale Liibaan Shuluq uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qanciyay qorshihiisa isla markaana uu haysto kaarka JSB. xubno ka tirsan xogayaasha kala duwan ee xisbiga JSB ayuu dhaqaale ku siiyay in boorka sawirkiisu uu ku dhagan yahay ay geliyaan xarunta xisbiga, taas oo laga qaaday sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada, laguna sheegay in musharaxa xisbiga JSB uu yahay Liibaan Axmed Xasan. balse markii goluhu ay tageen xarunta xisbiga, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si degdeg ah u joojiyay xafladda. waxa uu sheegay laba arrimood inay ku kaliftay inuu joojiyo xafladda. waa marka koowaad waxa uu sheegay in Liibaan Shuluq uusan haysan xubnihii ugu dhawaa siyaasiyiinta beeshiisa ee saameynta lahaa, wuxuuna si weyn uga carooday hadallo uu maanta warbaahinta mariyay ninka lagu magacaabo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi oo ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, magaalada Gaalkacyana ka sheegay inuu ka hortagayo doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud uu jeebkiisa ku wato isaguna uu tolanayo. sidoo kale waxaa si weyn uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu dooday in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo olog siyaasadeed la ah ama saaxiib dhow la ah Liibaan Shuluq uu diidan yahay nooca doorasho ee dalka uu ka qabanayo. mar kale waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud si rasmi ah u sheegay in uu culays kala kulmayo dhanka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad. sidaas awgeed waxa uu sheegay in hadda aan lagu dhawaaqi karin Liibaan Shuluq inuu yahay musharaxa xisbiga JSB ee dowlad goboleedka Galmudug. Liibaan Shuluq ayaa lagu samarsiiyay laguna maaweeliyay in ku dhawaaqidda xisbiga iyo sidoo kale musharaxa dowlad goboleedka Galmudug ay noqonayso magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, isla markaana hadda dib loo dhigay. kaliya waxa loo ogolaaday in xubno qoyskiisa ah oo siyaasadda ku jira ay isku sawiraan sawirkiisa oo yaala xarunta xisbiga JSB, ayna lacag ku qaateen xubno xogayaal ah sidii ay u gelin lahaayeen boorkan gudaha xarunta. tani waxay bannaanka soo dhigtay in Liibaan Shuluq uusan weli awood toos ah ka haysan dhinaca villa Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud. qaar ka mid ah saaxiibada Mahad Maxamed Salaad ayaa iyagu baraha bulshada dhankooda soo geliyay inay joojiyeen xafladda. waxay ku doodayaan in Mahad Salaad uu weli yahay musharax, isla markaana uusan ku qanacsanayn qaabka Xasan Sheekh uu rabo inuu uga reebo tartanka. sidoo kale xubno ka mid ah saaxiibadii Xasan Sheekh ee bannaanka jooga oo uu ka mid yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed laguna daray Cabdiraxmaan Odawaa waxay iyaguna ka qoslayaan dhoosha kadib markii Mahad Salaad lagu cadaadiyay inuu isaga haro gebi ahaanba tartanka. waxayna ku doodayaan in dhowr jeer hore ay u sheegeen Mahad Salaad in Xasan Sheekh danihiisa oo kaliya uu fiirsanayo, balse isagu uu weli dana ka fiirinayay dhinaca villa Soomaaliya, dacartiina maanta uu dhadhaminayo. xisbiga JSB gudihiisa waxa hadda ka socda ishaysi xoog leh. Liibaan Shuluq waxa uu qoorta ku dhagan yahay xubno xogayaal ah oo lacag uu siiyay, una arko in dhaqaalihiisii waxa uu ku baxay aysan sidii la rabay u suuragelin. tani waxay muujinaysaa in arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka Galmudug aysan ahayn kuwo sida uga fudud dhinaca villa Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli rogrogaya xubnaha uu ku aamini karo magaalada Dhuusamareeb, waxaana si weyn uu u dareensan yahay culayska ka jira gudaha deegaanada oo dhinacyo badan oo siyaasiyiin saameyn ku leh ay isaga ka soo horjeedaan. haddaba ishaysiga gudaha villa Soomaaliya iyo isrogroga dhanka Xasan Sheekh ka socda xagee ku dambeyn doonaan.